soo dhawaada ardayda qiimaha badan leh maanta waxaanu sii wadi doonaa course-keeni pharmacology-ga lecture-keena maanta waxaanu kaga hadli doonaa antihypertensive drugs-ka dawooyinka lagu daweeyo dhiig karka intaynaa dawooyinka u gelin waxaanu isla eegi doonaa markaa definition-ka hypertension-ka waxaa lagu qeexaa waxaa la dhahaa waa either sustained systolic blood pressure ka badan 140 or diastolic blood pressure ka badan 90 mm mercury waxaa la dhahaa marka ka sare loo aqaana systolic uu ka bato 140 ka hoose loo aqaana diastolicuna uu ka bato 90 sida caadigaana qofka 6 jeer la cabiro oo ugu yaraan 6 saacadood u dhaxayso ayaa la yiraahdaa that is called hypertension inta badan waxaa la yiraahdaa dadkeenu waxa dhacda in qofka hal jeer la cabiro dabeetana la arkaa soo kacsan yahay dabeetana saa lagu go'aan qaato laakiin sida standardka saxda qofka waa in la cabiro ugu yaraan 6 jeer waayo waxa jira faktarro badan oo dhigan doono markaa ay dhiiga kiciya jira waa maxay blood pressure-ku waxa weeyaan peripheral vascular resistance xididada cadaadiska xididada tusaale ahaan wax kastoo markaa in xididka yaraado soo urura keena wuxuu badiyaa markaa blood pressure-ka wax kastoo markaa cardiac output-ku hadduu batana waxa badanaya markaa blood pressure-ka cardiac output-ku waxa weeyaan stroke volume-ka wax kastoo markaa stroke volume-ka badiya wuxuu badinaya markaa blood pressure-ka wax kastoo heart rate-ka badiyana wuxuu badinaya blood pressure-ka haddaba groupkan maanta ka hadli doonaa groupada markaa lagu daweeyo antihypertensive drugs way badan yihiin groupkii koowaad baan maanta ka hadli doonaa oo loo aqaano beta blockers betadu waa receptor meelo badan laga helo waxaa laga helaa markaa keliyaha waxaa laga helaa respiratory-ga waxaa laga helaa wadnaha waxaa beta blockers waxa loo qaybiyaa beta 1 iyo beta 2 beta 1 waxaa laga helaa keliyaha iyo wadnaha beta 2 na waxaa laga helaa respiratory dawooyinkan aanu dhigan doono markaa waxaa jira kuwa non selective oo beta 1 iyo beta 2 giba qabsanay kuwaasi markaa waxayna u wanaagsanayn beta 1 way noo faa'iido laakiin beta 2 oo ku taala respiratory-ga qofka waliba dadka nugule asmada leh waxa laga yaabaa inay ku keenaan markaa broncho constriction ku keenaan dawooyinkan selective-ka waan arki doonaa waxa ka ambarbaranol dawooyinkan markaa beta blockers waxa kamid ah atenolol propranolol groupkan oo dhan baynu markaa mid baynu dul istaagi doonaa insha Allah groupkan la yiraahdo beta blockers waa dawooyinka ugu wanaagsan ee optionka ugu wanaagsan ee lagu daweyn karo qof kale markaa hypertensive-ka qof kale dhiig karka iyo markaa waliba leh heart disease-ka or heart failure waa lagu daweeyaa mechanism of action-ka dawooyinkan sidee bay u shaqeeyaan dawooyinkan beta blockers waxay reduce karayaan markaa blood pressure-ka iyagoo decrease ku sameynaya markaa cardiac output-ka ayay ku sameeyaan cardiac output-ki ayay ku sameeyaan waxyaabaha side effect-ga lagu arko waxaa kamid ah bradycardia waxaa kamid ah hypertension waxaa kamid ah fatigue waxaa kamid ah insomnia waxaa kamid ah sexual dysfunction in markaa hamigii ay yareeyaan waxaa kamid ah insomnia in hurdo yaraan ay keenaan waxaa kamid ah fatigue dawakhaad inay keenaan waxaa kamid ah hypertension in dhiigga hoos u dhigaan ayaa kamid ah waxyaabahan ku arkay waxaa kamid ah inta badan sexual dysfunction dadka cabanaya waliba dawada la yiraahdo atenolol aad ugu arkay